السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومر لبعض operations of fraction. Okay, qaybtan labaad maanta waxay noqon doontaa subtraction of fraction. Qaabkee loo kala jaraa jajabyada qaabkee ayaa loo kala jaraa. Okay, saddexdii siyaabood ee aynu ugu soo hadalnay addition ay la mid tahay waa kaliya kala duwanaanshaha wuxuu ka imaanayaa waa calaamadda minuska. Okay, hadaba qayb uu hooseeyaheedu isku mid yahay, qayb uu hooseeyaheedu kala duwan yahay iyo qayb hooseeyaheedu LCM ay wadaagaan intaas un bay noqon karaan. Okay, tusaale un baan ka bilowanaynaa marka waxaan leenahay example okay tusaalehani koowaad waxa uu ina leeyahay kala jar 2 whole number 1/5 oo laga jaray 6 whole number 2/2. Okay, 2 whole number 1/5 oo laga jaray 6 whole number 2/2. noocan oo kale ayaa ku imaan kara isagoo plus ah, haddana waxaan haysanaa isagoo minus ah. sidayna asharkii hore aynu ku soo baranay qaab ayaa loo xalinayaa. jajabkani wuxuu u qoran yahay as mixed fraction ayuu u qoran yahay, jajab isku dhafan ayuu u qoran yahay. haddaba waxaanu ku qasbannahay mid kasta inaynu u soo xalino sida aanu ku keeno proper ama improper midku uu ku imaanayo inaynu ku keeno ayaa naga rabaa. Okay, sideen u xalinaa xisaabtu way isku xirxiran tahay. asharkii hore dad si fiican u soo fahantay, kan wuxuu ku noqon doonaa mid biyo ayuu ku noqon doonaa. haddaba waxaan leenahay mid kasta gooni aan u xalinaynaa. 2 whole number 1/5 waxaa loo xalin karaa intaad dhahdid 5 markaasaad leedahay 5 times 2 plus 1 5 times 2 plus 1 oo laga jaray tanna xalli sideeda waa xalli labo 2 times 6 plus 2 ayaan leenahay. Okay, tan ayaa waxay kula mid tahay 5 lagu dhuftay 2 waa imisa waa 10 10 loo geeyay 1 waa imisa waa 11 over 5 aad leedahay minus. Okay, 2 lagu dhuftay 6 waa imisa waa 12 12 lagu geeyay waa imisa waa 14 oo loo qaybshay 2 laba mid waad samayn kartaa. jajabkana sidiisii aad ku xalisid oo aad ku wadid jawaabteeda ay ku imaado, ama tan oo kale way fudeedsami kartaa inaad fudeedeysid. Okay, haddii aan fudeedeeyo hooseeya ima imaanayo over 1 aad dhihi kartaa markaasi, ama sideeda ayaan ku wadaynaaba kaba soo qaad. annagoo sideeda haddii aan ku wadno isku jawaab ay imaan karta qaab kale aan kuu sheegay haddii aad martid. maxaan dhahnay waa mid laba kala duwan wax ay wadaagaan oo isra ma jiro. haddaba waxaan samaynaynaa labadoodan isku dhufanayna. 5 lagu dhuftay 2 imisaan leenahay waa 10 10 loo qaybshay 5 waa imisa waa 2 12 ku dhufo 22 minus halka ay plus ka ahayd hagunba waxay halkan ka noqonaysaa minus. Okay, 10 loo qaybshay 2 waa 5 5 ku dhufo 14 lagu dhuftay aad leedahay 5. Okay, 5 4 ku dhufo 20 ibir dhigo labaad wadataa 5 ku dhufo 1 waa 5 6 7 70 waxay noqonaysaa 70 ay noqonaysaa 70. Okay, ayaa waxay kula mid tahay 22 laga jaray 70. Okay, laba mid aad samaynaysaa markay halkan ay ku joogto. haddii aad qof bilow aad tahay 22 kama jarato 70 waxaad dhehaysaa nidaamkan 70 oo laga jaray 22. Okay, 10 ka jar 7 10 ka jar 2 waa imisa waa 8 halkan 6 ay tahay 6 2 ka jar waa imisa waa 4 48. marka sidaan aad u kala jirtid halkan waa tiradan waa yar tahay tanna way weyn tahay saxiix. marka sidaan aad u kala jirtid tirada weyn calaamadeeda iska soo qaado oo minus ah kaliya waxay noqon kartaa marka minus 48 over 10. haddii aad aragtid tirooyinka noocan oo kale ah aad ilaa usoo kala jar. marka aad usoo kala jartid un minus ka qaado ee tiradan weyn ayaa meesha jirta soo maha waa 22 laga jaray 70. markii nidaamkan oo kale haddii lagu dhahaa 3 laga jaray 5 waxay noqonaysaa minus 2 ay noqonaysaa. haddaba marka jawaabtaada ayaa waxaad raacinaysaa minus aad raacinaysaa. Okay, kan wuxuu ahaa waa labo tusaale oo mid wuxuu ku fududeynayaa inaad mixed fraction ka qaabka loo shaqeeyo
ayaad halkan ku baratay haddii hata casharkii hore aadan soo fahmin kan qaabkaan ugu shaqeeyey iyo qaabkaan u qoray ayaad fiirinaysaa haddii kalena casharkii hore ayaadba si fiican usoo fahantay oo kanna wuxuu ku noqonayaa basiid isagoo uusan ahayn qaabkan ayaan hal tusaale ka qori doonaa markaas waxaan idin diri doonaa laba exercise oo kale oo aad qof kasta uu kaga soo shaqeeyo xaafadda ama geeskiisa uu ugu soo shaqeysto okay waxaan dhihi karaa 4 divided by 3 minus 2 divided by 5 oo kale okay caadi uu qoran yahay uu diyaarsan yahay kaliya maxaad leedahay 5 iyo 8 waxa ay wadaagaan ma lahan waa isku dhufo waa 5 iyo 3 times 5 times 3 ama 3 times 5 waa imisa waa 15 15 u qaybi 3 waa 5 5 times 4 5 lagu dhuftay 4 waa imisa waa 20 minus aad leedahay 5 iyo 10 5 u qaybi waa 3 3 lagu dhuftay 2 waa imisa 3 lagu dhuftay 2 waa 6 okay 26 ka jar waa 4 iyo 10 4 iyo 10 oo loo qaybsay 5 iyo 10 okay tanna nidaamkan aad ugu shaqeyn kartaa haddaba marka waxaan idin diri doonaa exercise qof kasta uu iskiisu isugu soo dayi doono okay exercise waa question number 1 nidaamkan oo kale aan u qoraynaa 3 whole number 1 over 2 minus 4 whole number 2 over 5 waa mid tan labaad waa nidaamkan aad ugu soo shaqeyn doontaa 4 divided by 6 4 divided by 7 minus 3 divided by 2 tanna adiga ayaa ka soo shaqeyn doona labadan su'aalood maanta casharkeen halkan ayuu nooga egyahay